xisbiga dhalinyarada qaranka ee kaalmo qaran ayaa maanta lagaga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn gudoomiyaha xisbiga cusub ee kaalmo qaran Professor Mukhtar Ibrahim Yunis oo saxaafadda la hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda xisbigan iyo ujeedooyinka ay u fureen. Keenay junti badan baan ku bixinay waa fikrad aan ku soo qaadanay xisbigii SOS. runtii dhalinyaradu waxa weeyaan dhalinyaradu wadanka ama dawladnimadu dhalinyarada ku xiran tahay sida ugu xiran tahay waxa weeyaan iyaga u daayar maskaxdoodu waa maskax caafimaad qabta oo furan oo aan ku keedsanayn wax burburin iyo xumaato iyo dagaal marka dhalinyaradu waxa weeyaan waa maskax memory cusub weeyaan memory cusub markaan leeyahay xasuustooda laguma shibin wax dal burburin la yiraaho marka waxa weeyaan saas awgeed inaan waxaan ujeedadeedu ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dalka iyo dadkooga horumar gaarsiiyaan way maskax fuucan oo mataqaanaa cusub weeyaan saasaan ni sheegana Sultan Ahmed Diriyo oo kamida xisbigan cusub ayaa isna goobta ka hadlay isagoo ka sheekeeyay in loo baahnaa xisbiga noocan oo kala ah balse uu ka gedisnaan doono xisbiyadii horay dalka uga jiray maadaama uu yahay xisbi dhalinyaro waa salaamantihiin kadib waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed u gudbinaynaa in xisbigan oo maanta loo dhisay inay ka qayb galaan si wadankoodu u dhismo oo u hormaro oo qaybaha kala duwan oo looga baahan yahay ay ka qayb qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed dhan ayaan ku soo dhaweynaynaa waa xisbi u furan dhalinyarada Soomaaliyeed oo qabiil gaar ah u xirnayn waa ku soo dhaweynaynaa inay ka soo qayb galaan meel kasta joogan waxaan leenahay gacmo furan ayaa xisbigan golihiisa dhexe inuu soo dhaweynayaan afayeenka xisbiga Ahmed Abdiraxmaan oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in xisbigani uu wax badan ka bedeli doono siyaasadda dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada inta badan tahriibka iyo dhibaatooyinka ay ka soo gaadhaan taasoo loo jahayn doono xagga siyaasadda iyo in ay dalkooda dhistaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام يا دمان ومدة الصوماليات وحنو مانتا هالكن سكون نمد إن أنا يدين شجنو إذا نبرة حزب عصب أو كم من نقطة دون حزبية الصوماليات يجري دونا حزب جاسوليرا حزب كذا غير هذا كرنك كنا ما قاعدين كلام قرن مركا أنت أنا يدين شرحين ama aynaan wax way gudagelin gabagabadii qaar kamida xisbigan ayaa iyaguna goobta ka hadlay responsibility-ga cid kasto lehna mas'uuliyad baa inaga wada saaran dhamaanteed dawlad qura laguma dhalilayo laakiin mas'uuliyadda cid leh waxa laga yaabaa inay khaaska u siiyeen inay taagan tahay garan maayo waxa dhalinyaradu maanta ku dhimanayaan cidna dhaliilmayno anagu laakiin waxaanu ka wadnaa dhalinyaradu waxweeye waa lafdhabarta maanta wadankan uu leeyahay ama human resources-ka uu leeyahay weeye in uu yahay xisbigani xisbi muhiim u ah khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan una furan gacmo furan lagu soo dhaweynayo ay u furan yahayna cid kasta oo Soomaaliya oo ka joogta Soomaaliya meel kasta waayo xisbi ma ku asaasan nin jeclaysi ama waxa maanta ina kala geeyo oo qabyaalad Axmed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.